arrinta ugu horreyso aan ka bilownay waxay ahayd dadka xaasaska ka maqan yihiin waxay qaadan jirtay 3 sano 5 sano iyo ka badan waxaan ballan qaaday inaan arrintaas wax ka bedelo waxaan ka dhignay 12 bilood iyo wixii ka yar ballankaasna waa fuliyey laakiin qoysas waxaa jira ay isu keenteen ilmihiina ka maqan yihiin marka arrintaas see la isugu qaban karaa case qaas ah oo shaki ka jiro cunuga inuu qofkii dhalay ama whatever waa dhici kartaa laakiin generally markii loo hadlaayo markaan ku leeyahay 12 bilooda dadka loo keenaa xaasaskooda applicationka waxaa ka mid ah carruurta xaasaska keliya ma aha marka hal case oo always fiiri waxaan waa wax oo macnaha oo general ah laakiin cases always waxaa jiro oo ka baxsan sharcigaas waxaana keenayo shakiya waxaa ka jiro for example guurka ama ilmaha inuu qofkii dhalay ama waxaa dhici karto qofkii immigration ahaan in loo dhammaystiro laakiin security ahaan in farihiisa la waayo kale waa gartay Canada waa gartay immigrationka xaasaska iyo qoysaska la isku keenayo aada loo fududeeyay qof walbana waa weydiin kartaa taas waa gartay Canada waxay sheegtay inay soo qaadayso dadka leh aqoonta kaliya oo dadkii qaxootiga ahaa ama xeerkii sharciga adduunka u yaalay xaguu ka maraya dadkii aqoonta lahaa kaliya haddii la soo qaado dadkii dagaaladu dhibaateeyeen arrintaas wax ka jiraan ma jiraan Canada waxay 3 group bay albaabada u furtay groupka koowaad waa qaxootiga groupka labaad waa qoysaska la isku keenayo groupka saddexaadna waxaa la economic immigration waa dadka maskaxdooda iyo khibradooda loo keenayo waddanka saddexdaba waa u furan tahay Canada weli qaxootiga albaabada Canada ma laga xirin waxaan u maleynayaa inay ugu qaldamaysid Mareykan iyo waddamo kale Canada inta aniga mas'uul ka ah iyo mas'uuliyadda dawladdeena ra'iisul wasaaraha Trudeau madax ka yahay iska dhaaf inaan albaabada xirnay waa badinay qaxootiga aan Canada keenno waa kordhinay waa gartay Axmed Canada waxa ay ku jirtaa xilli doorasho xisbigiina liberaalka maxay filan karaan doorashadan soo socota ee dhacaysa bisha October ee sanadkan والله horta go'aanka dadka Canadianka leh ayaga wax dooranayo anaga codka waa weydiisan karnaa laakiin ayaga codka leh arinta kaliya oo meesha taalo waxa waaye wax qabadkeena waa cadyax dhaqaalaha meel fiican oo maraya shaqooyin badan baa abuurnay maalgelin badan baa waxaan ku sameynay reeraha waayeelka caruurta jaamacadaha waxaan ku dhihi lahaa transportationka waxyaalo badan iyo immigrationka marka recordkeena waa record aad u wanaagsan marka waxaan aniga aaminsanahay recordkaas haddii aan dadka Canadianka ula tagno waxaan rajaynaynaa inay recordkaas daraadeed oo wanaagsan inay cod mar labaadna siiyaan waa gartay Axmed ugu dambeyntii waxaa jira dad Soomaali u badan oo weli Mareykanka ku xayiran oo raba inay u soo gudbaan Canada wasaaradda ama hoggaanka socdaalka dalkan ma ku tala jiraa wax fududayn oo dadkaas ay Canada ku soo gali karaan dawladda aniga aan hadda ka mid ahay dawladda Prime Minister Trudeau iska dhaaf inaan qaxootiga first qaxootiga numberka Canada ay soo kicaysan jirtay Canada qaxootiga ay aqbali jirtay iska dhaaf number 1 waa badinay number 2 hay'adaha oo qaxootiga caawiyana lacagtooda waa u kordhinay أنا أكورني وزير أهان نمبر 3 ودم بدن وكله بوحن كل رجالنا إن نقول أيضا أنجا وأن توبرنا سي عين قحوتي وقطان كندا ما أنت وحيوتها مثلا دولتها أقوم يمسن أو أرمها قحوتية رنتي قيبوين كعيارها in fact last year كندا وحنا قطي ودن كندا وحنا قطي ودن كقحوتي بدن أقبلتان كودا مريكنك waxay noqotay reer galbeedka dhan wadamada galbeedka waxay noqotay wadanka reer galbeed oo ugu qaxooti badan aqbalitaan last year ana wasiir ahaa marka dawladdan waa dawlad runtii qaxootiga aqbasho oo golna xuquuqdooda inay ilaaliso